وديق إلهي دولة النماذ وشرف عيدا النماذ وطور بيليس نماذ ودير ديرني حجابنا النماذ وديق إلهي دولة النماذ وشرف عيدا النماذ وطور بيليس نماذ ودير الديران إيو حجابنا وحتى دليل أطير عبتي ونقول ضد مسكين كي وقورا كيدو الميينا صحيرا تعدي وداني نيمو دالكيو قهيقنا وحتى دليل أطير عبتي ونقول ضد مسكين كي وقورا كيدو الميينا صحيرا تعدي وداني نيمو دالكيو قهيقنا بدلها بيليسكي شرعي وددالي dadku soo helo nabadanta goodu hagar baxa madalaha bilayske sharciga u dadaale dadku soo helo nabadanta goodu hagar baxa هذه أضبان وهم برينا عيدك بوليسك ومديننا ويدوتها شغالة قرن كوا هيسان ضد بدر ما وجا بوليسكو هوشة وقبته قولدي عيد ما الملتري هانشرتي وهايستين وان كمل هانشري إن عيد ما أيهين عيد ما الملتري قرن كيالية ديارها يمراكب في تانجية ده وتا sanadkii ama 10 sano mar dagaal gala inta kala diyaar garow jira laakiin waxa uu jira ciidamada la yiraahdo ciidamada amniga qaybta security-ga oo dhowr nooc ah oo 24 saacadood qofku uu shaqo ku jiro waxa hubaala ninka booliska 10 sano ka shaqeeya ee si dhab ah hawsha booliska u qabta inuu la mid yahay 40 sano shaqeeya waayo maalinta uu booliisku shaqeynaya waxay la mid tahay 2 maalmood maadaama aanu saacad qura maskaxdiisa shaqo ka baxay xataa haddii gurigiisa carruurta la joogo dareen war baa ku taagan maxaa ugu yar ama askari ha ahaado dabla'a ama korneyl ha ahaado ama janar ha ahaadee ninka booliiska gurigu degan yahay agtiisa marka u yartay shaqaaqa ka dhacda shaqaaqo nabadgelyo darrada haba yaratee xaafada islaayay gaari jiiray gaari xoolo jiiray qofkaas isagoo hurda qofka booliiskii waa waajib saaran inuu hawsha galo waxyaalaha kale soo kordhay ka daran booliiska hawl kale ayaa u taaloon ciidamada kale u oolin booliisku wuxuu galay cadaaladii ninka booliiskii ifka iyo aakhradaba cadaaladda saarnay aakhira janno toosan uu ku tagi karaa cadaabna uu ku mutaysan karaa dembi kasta oo dhaca oo gar laga qaadayo oo maxkamad la geeyo cadaaladdu waxay ka bilaabantaa oo qofka dembigu inuu dembile yahay iyo inaanu dembi lahayn go'aanka uu xaakimku qaadanayaa waa go'aanka uu soo qoray qofkii ciidamada nabadgelyada amniga ahaa ee uu qofka ka soo qoray
waa markhaatigii koobaad ma jiro qof kaloo awood u leh inuu soo kala dhex galo odayo islaantiisa guriga oo shaqaaqa ka dhacday cid kale wasiir ma geli karo dhakhtarka iyo buriiska oo qura ayaa awooddaanay inay qofka odayga iyo islaanta carruurta iyo aabbahood wax dhex geli kara oo guriga uu geli kara oo axwaashooda khaaskaa ka garqaadi kara waa buriis iyo dhakhtar cadaaladdaa la raadinayo ee dadkoo dhami leeyahay cadaalad baa la rabaa maxkamadii kanaa jira xaakimka iyo qofka garta qaadaya waxa koow u ah caddaymaha uu soo qoro baadhaha stationka jooga ama kiiskaa galay hadduu baadhuhu dalka dembi geliyo cadaalad darre soo qaado uu xaakimku xukumo oo madaxweynuhu saxeixo oo ninkii lagu dilo wuxuu ahaa nin qaranka maaragtay dembi ka gala ama qof dilay oo dembigaas qaladii uu soo qoray ninka baadhihii halkaa ka soo bilaabay xaakimkii dembi ma leh oo xereeriyowga dembi ma leh oo madaxweynihii dilka saxay dembi ma leh waxaasoo dembi wuxuu saaraya baadhihii hadduu intaa xaqa soo maro si cadaaladana waa ahlu janno khayr shaqeeyey oo shar qaran ka qabtay buriisku waa furii inanka buriiska calaamadda buruuga ayaa qaranka sita awood aanu ninka lahayn buu leeyahy waayo wuxuu leeyahay awoodu qofka bar halkaa uu joogo ku qabto qof kasta gaarigaaga dhig uu dhigaya xabsiga iskee dhaqaaq uu dhaqaaqaya awooddaa haddii lagu siiye maxaa adigana ku saaran awooddii qarankaad saataaye inaad bini'aadmiga 99% dembiilayaal maaha waa dad wanaagsan ilaahay bini'aadmiga fidru ku abuuray fidraduna waxa weeye ilaahay bini'aadmiga xagga hagaagsan runta sheeg qof ha dulmin waxa dhicin qof ha dilin bay bini'aadmiga inta badan ilaahay ku abuuray laakiin mid iyo laba qaldan bal ka waran haddii ninkii awooddaa la siiyey uu dadkii o dhan ku ciqaabo nin baa qaldan qof baa qaldami kara ilmo yaroo ciyaal iskuul baa qaldami kara oday aan waxba arkayn baa qaldami kara islaan aan waxba aqoon baa qaldami karta oo haddaad qofo xooggii lagu dhibay qaranku lahaa awooddii haddaad ku isticmaasho oo tuqaantuqayso ood caydo ood inta qabata jeelka iskaga tuurato xageebada awooddaa ka keenaysa awooddii lagugu aaminay baad ku ciyaartay aakhirna waa kuu cadaabi filan dambiilaa tahay cidhibtaaduna ubadkaa ka muuqanaysa haddaad cid dulmido laakiin haddaad xagga wanaagsan u isticmaasho ehlu jannada waa tahay ifkana cidhibsan baa kaa hadhaysa ogow labadaasaa buriiska dhex yaalla buriisku awoodda hawsha idin saareen dadka dheertihiin ee intaad nooshiin idin saaran ee buriiska ka wada muuqata markuu 40 jir gaaro ninka buriis 15 shaqeeyo laba dhafoor way daloola cirrana waalay way ka muuqataa dhibtu haya laakiin haddaad dhibtaas sida wanaagsan u isticmaasho waxaa laga yaabaa if iyo aakhiraba inay cid wanaagsan ka hadho awooddaana waa leedihiin bidi qurqurkeedna waa saarantihiin if iyo aakhiraba sidaa labada ilaahay waxaan kala jira noqotaan kuwa xagga wanaagsan u ciyaara dad badan baa idinku jira oo 40 sano shaqeeyo anigu aqaano qaar 20 sano shaqeeyo ku jira oo magac leh oo qarankooda u shaqeeyay oo u godoboobay oo godobta lagu raadinayo iyaga ee loo geysanayo qaranka nabadiis ku fadhido baayac mushtarada dhaadheer muu dhiseen meeyara xashiish muu ururiyeen jaamacadana lama galeen wasiirro gaari qurux badan ma kaxaysteen oo taay ma xidheen madaxweynena meelaha gacmaha ma taagtaageen intuu halkaas soo taago haddaanay buriisku u godoboobeyn oonay u dhimaneen oo daafacayn qaranka iyo ciidamada kale ammaanka waxaan ka rabaa markaa oon kula dardaarayaa awooddaa laydin dhiibay ee nasiibka u yeelateen ee dhib iyo dheef iyo ajar iyo aakhiro cadaabba keeni karta inaad si wanaagsan iyo waddada wanaagsan u martaan ilaa imika buriiska somaliland uu ka tilmaamaya gobolka geeska afrikaanu degannahay dowlad yar aan ciid tababar badan siinin raggii hore bilaabay rag wada'a u badan dhaawacii dagaalkii halgankii ka soo haray kuwii yarraa bilaabay iyagoo tabar waasan herin maanta qarankooda ku filaaday aad iyo aad baan idinku bogaadinayaa waanu idin hambalyeeraynaa qarankiinuna wuu idin ogyahay waxaad tihiin dhibtaa qabtaanna waa laydin ogyahay waxaan idinku dardaarayaa halkaa qarankiina uga sii haya nabadgelyadeenna waa ilaaliya cadaaladana ilaaliya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu